rabbit. Sheekadan waxay ku saabsan tahay libaaxa iyo bakaylaha. A cruel lion lived in the forest. Libaax naxariis daran ayaa ku noolaa kayn. Every day he killed and ate a lot of animals. Maalin kasta wuxuu dili jiray oo uu cuni jiray xayawaano badan. The other animals were afraid the lion would kill them all. Xayawaanadii kale way ka baqeen in libaaxu uu dhammaantood dilo. The animals told the lion, "Let's make a deal. Xayawaanadu waxay u tageen libaaxii oo waxay ku yiraahdeen aan heshiis galno. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day." Haddii aad ballanqaado inaad maalintii hal xayawaan oo keliya cunayso, midkeen ayaa kuu iman doona maalin kasta. Then you don't have to hunt and kill us. Markaas uma baahnid inaadna ugaarsato oo na disho. The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed, but he also said, Qorshuhu wuxuu u muuqday mid si fiican looga fikiray libaaxa, markaas wuu oggolaaday. "If you don't come every day, I promise to kill all of you the next day." Laakiin sidoo kale wuxuu yidhi, haddii aad maalin kasta ii imaan weydaan, waxaan ballan ku qaadayaa in aan idin wada dilayo maalinta xigta. Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Maalintaas wixii ka dambeeyey, hal xayawaan ayaa u tegi jiray libaaxa si uu u cuno. Then, all the other animals were safe. Markaas xayawaanadii kalena way nabadgeli jireen. Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. Ugu dambayn waxaa la gaaray wakhtigii bakaylaha uu u tegi lahaa libaaxa. The rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. Maalintaas bakayluhu si aad u gaabis ah ayuu u socday, oo wuu soo daahay markaas libaaxii wuu ku xanaaqay markii uu bakayluhu u yimid libaaxa. The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" Libaaxii oo xanaaqsan ayaa weydiiyey bakaylaha, maxaad u soo daaday? "I was hiding from another lion in the forest. Waxaan iska qarinayay libaax kale oo ku jira kaynta. That lion said he was the king, so I was afraid." Libaaxaasi wuxuu igu yidhi aniga ayaa boqor ah, markaas waan ka baqay, ayuu ku yidhi libaaxii bakayluhu. The lion told the rabbit, "I am the only king here." Libaaxii wuxuu ku yidhi bakaylaha, aniga ayaa ah boqorka keliya ee halkan jooga. "Take me to that other lion, and I will kill him." Ee ii gee meesha uu joogo libaaxa kale, oo waan soo dilaaye. The rabbit replied, "I will be happy to show you where he lives." Bakaylihii wuxuu ku jawaabay, aad baan ugu faraxsanahay in aan ku tuso meesha uu degan yahay. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. Bakaylihii wuxuu libaaxa geeyey ceel duug ah oo ku yaalay bartamaha kaynta. The well was very deep, with water at the bottom. Ceelku wuxuu ahaa mid aad u dheer oo biyo yaalaan hoos. The rabbit told the lion, "Look in there, the lion lives at the bottom." Bakaylihii wuxuu ku yidhi libaaxa, halkaas eeg. Libaaxaasi wuxuu ku nool yahay hoos. When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. Markii libaaxu uu eegay ceelka, wuxuu ku arkay wejigiisa biyaha ku jira. He thought that was the other lion. Wuxuu mooday in uu yahay libaax kale. Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. Isagoo aan sugin ilbiriqsi, ayuu libaaxii ceelka ku booday si uu ula dagaalamo libaaxa kale. He never came out. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. Wuxuuna isku tuuray ceelka, mana uu soo bixin mar dambe. Dhammaan xayawaanadii kale ee kaynta ku noolaa aad bay ugu farxeen qiyaamada caqliga badan ee uu sameeyey bakayluhu.